arrimo saaka ka soo baxay iscasilaadii shalay muska casilnaayada garsoorka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya annaga oo aan cidna ayna qasbin oo dastuurku xaq noo siinay inaan iska casilno xilkaasi xeer number 24 xeerka nidaamka garsoorka dawladdu oo awood noo siinay inaan iska casili karno xilka aanu hayno dawladda markaan ma aragno aan wadi karin cadaaladdaasi haddii ay madax bannaan weeyeen waxaan saakaani oo ahaa garsooriyada maxkamadda gobolka Salal Muxtaar Daahir Jibriil aan u geeyay alaabtii amaantida qaranka aanu hayay oo ay ka mid ahayd alaab ay ku deeqday wasaaradda maaliyadda oo sessionary miisaas iyo kuraas markii ay aragtay wasaaradda cadaaladda inaan loo keenin ay wasaaradda maaliyadda ay go'aansatay inay noo qalabeyso xafiiska oo nagu soo wareejiso ka garsoor ahaan aniga waliba igu soo wareejisay inaan geeyo gobolkaas arintaas waxa ka dayay rag xukuumadda ku jira siyaasadda oo ku dhawaaqay ama sa ka dhigay hanti la muusay waa istishanere ay ku deeqday wasaaradda waliba aan wasaaraddeedii ahay oo si gaar ah waliba ka garsoor ahaan markay arkeen inaan ku shaqeeyo xafiiska taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag ay wasaaraddaas go'aansatay ee noo qalabeyso xafiiska maxkamadda ayna naga siistay xafiiska barsaabka meel aan ku shaqeeyo alaabtaas markaan soo kacay waxaan ku soo qaaday gaariga waxa aan la hadlay mas'uulka loo soo magacaabay sida kumeelgaarka maxkamadda rafcaanka in alaabta ay wala wareegto alaabtaasi u diiday sifa sharci oo ku diiday inuu sheegay alaabta waa la luusaday wala alaabtaasi sifa ay maxkamadda kaga baxday waxa haya kaaliya asay maxkamadda rafcaanka garsoorayaasha maxkamadda rafcaanka waliba aniga oo maqan alaabtaasna ay taalo maxkamadda rafcaanka oo gobolka Sanaag ku maqan oo sidii uu qaadi lahaa ku jira qorshaheeda ayaa la geeyay meelka waan ka soo qaaday saaka markaan ku wareejiyay hatta in aan galo maxkamaddii waa laga hor istaagay anoo wali xasaanadii waliba sugaya go'aanka ay ka qaadan doonaan guddida cadaaladda ee qaranka ee ku xusan qodobka 152 oo sugayno go'aanka ay ka qaadan doonaan iscasilaadayda oo annagoo guddida cadaaladda aanu hayn wali wax dhaleecayn laakiin soo jira qaar xubno ka mid ah ay geysay xukuumaddu awgeed isku casilay in arrintaasi aan dadka ay saa ku qancaan waxaan u sheegay cid kasta oo la marin habaabiyay oo loo sheegay ereyada amase hadallada deelqaafka ah ee la rabo garsoorkii iska casilay iska casilay markay cadaalad darrada ay u dul qaadan waayeen masbanaan la'aanta garsoorka lagu hayo iska casilay in la dhex mariyo bulshada qaydka in garsoorayaashaas inta ay lahayn bay qaateen intidaasna saxaafaddu way tagi doontaa way soo duubi doontaa iyo oo moora oo cidii la wareegi lahayd